طافت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. walaalyaal waxaan soo gaarnay xalqadii 24aad kana mid ah xalaqaad kan u hadlaynay barnaamijkeena maalgelinta iyo xeerarkiisa. waxaan gudu jirnay qaybtan u hadlaynay al-ahdaaf al-istithmar fi al-islam, ahdaafta maalgelinta laga leeyahay markii islaamka la fiiriyo. ahdaaftaasi waxaan soo kala qaadnay laba ahdaaf khaas ay ahdaaf caama. ahdaaftii khaaska waa ka soo hadalnay, waxaanu hadda arki doonaa insha Allah taala al-ahdaaf al-caama, ahdaaftii guud. ahdaafta caamka waxaa loo yaqaan ahdaaf al-kulliya, waxyaaba kulli macnaha oo yani nidaamkan dhaqaalaha u adeegaya si guud ahaaneed ugu adeegahaya oo nafcigeedana meel kasta uu taabanayo dadka oo dhan u wada gaarahaya oo aan ku ekeen qofka maalgelinaya kaliya. yani ahdaaftii hore waxay aheeday qofka maalgeliyaha faa'iido uu helaya, laakiin tan waxa weeyaan maalgeliyaha kaliya kuma eka faa'iido uu helaya ama ahdaaftaani kuma ekaanayso. ayib, ahdaaftaas marka maxaa ugu muhiimsan? dhowr qodob ugu muhiimsan aan soo aragna. qodobka ugu horeeya waxaa dacmu wa taxqiiqu ahdaafi nidaam al-iqtisaadiyi al-islaamiy, yacni in la xoojiya la xaqiijiya ahdaafta ama ujeedada nidaamka dhaqaalaha ee islaamka. oo qofka mustahmirka ama maalgeliyaha muslimka ah waxaa la yidhahdaa huwa almas-uulu alawal, mas-uuliyadda koowaad asaga ayay dusha ka saaran tahay. oo maxay mas-uuliyadda koowaad dusha saaran maxay tahay? inuu ka qayb qaato sidii nidaamka dhaqaalaha islaamka meel sare u tegi lahaa. anta muslim baa tahay, mabaadi'daadana waa mabaadi islaami ah, waxaadna doonaysaa shareeca islaamka inaad ku dhaqanto baad rabtaa. saa daraaddeedii waxaa waajib kuu ah horta inaad raadiso sidii nidaamka dhaqaalaha islaamka uu kobci lahaa. mas-uuliyadda ku saaran maxay tahay ama culays ku saaran maxay tahay? waa inaad horta ogaataa dareenkaasi. falsafada waa inay kaa dhaadhacsan tahay. anta muslim, mas-uul ummadda boos fiican ka haysaa ama position fiican baad uga jirtaa oo ah inaad yacni maratay ummaddan horumarkeeda aad ka qayb qaadato, aad qayb ka ahaatid. ayib, sidaa daraaddeed marka qofka muslimka ah wuxuu la imaanayaa sulukiyaad ama habdhaqan wanaagsan. wuxuu ku tilmaanaanayaa waa in laga helaa macnaha dulqaad, akhlaaq wanaagsan, makaarim, fadaa'il, waxyaabahaas oo dhan. yani maaragtay inuu intaas inuu yirahdo. dabcan qofka muslimka keliya ma aha inuu noqdo qof faa'iida raadinaya, ee waa qof mas-uuliyad dacwo saaran tahay, shaksi mas-uuliyad dacwo ay saaran tahay weeyaan. waxaa la yidhaahdaa oo la garan karaa waxaa loo yaqaana kaalintii ay ku lahaayeen dadka muslimiinta oo ganacsiga diinta baahinteeda in badan waxaa meelo badan gaarsiiyey dadkii muslimiinta ahaa ee ganacsiga ku jiray. akhlaaqdooda wanaagsaneeday, xaaraanta iska ilaalinaya, beenta iyo khiyaanada isdabamariska ay iska ilaaliyeen, iyo musayifka ama tasiifka ama fujarka ay wax beenta oo la sameynay, waxaas oo dhan iska ilaalinayeen. ayib, marka waxaa jirta barnaamij la yidhaahdo altijaaratu waddacwatu ila allah, ganacsiga iyo dacwada allah. oo dadka ducaadda dadka ganacsadaan rabaa waa inay ogaadaan inay yihiin ducaad, laakiin waa haddii mas-uuliyadaas dareemayaan oo aad diinta uasi haduusan baran ka waran maxaa la isku sheegaya marka waa arrinta khasaarada le weyan macnaha. ayib, inuu dadka diinta gaarsii baa la rabaa oo ummadda oo u gaarsiiya khayr oo caalamka oo dhan ay ku daydaan, gaal iyo muslimba. ganacsi ila muslim iyo gaal wuu dhexmari karaayay. adoo muslim shirkad gaalo waa wax ka ganacsi kartaa, adiga wax waa ka iibsan karaan, caadi waa dhib ma lahan, iyadoo dawaabidii sharci islaamka la ilaalin oo doonfaarka iyo xaaraanta waxyaabahii sharciga ku banaaneen la iska ilaalinay. idan in muslimiinta ganacsiga ku jira ay noqdaan ducaad waa shay laga maarmaan walaalayaal. waxay culamadu sheegaan nin waxaa la yidhi Soomaali ah, nin Jiinaysi ah ayaa wuxuu martigeliyey baa la yidhi Soomaali. wuxuu yidhi dadkaan Soomaali ganacsi kala dhexeeya waa Shiinaysi. waxaa ogtahay Soomaali ganacsiga boqolkiiba intuu ku xiran yahay Shiinaha weeye, wax badan baan ku xiran. marka wuxuu yidhi maalin loo marti qaadaa la yidhi. wuxuu yidhi bal igu yeer wixii Soomaali oo ganacsi xiriir naga dhexeeyey. waa u yeeray. markuu u yeeray martiqaadu u sameeyey, laakiin muxuu ku martiqaadayaa? waa ninkaan Shiinayso bahallada iyo doonfaarka iyo iyada cune
wuxuu u diyaariyey baa layidhi hilib geel iyo ari iyo cunno iyo hilib doonfaar iyo eeyo iyo wixii adiga hilib oo isticmaalayno yaqiino dhanaba u diyaariyey markii hoolkii laisku yimido oo xafladdii macnaha oo qadada loo fadhiistay wuxuu yidhi kan waa doonfaar kan waa hilib geel kan waa fulaan wax alla wixii kala ahayn buu sheegay soomaalidii meesha fadhiday waxayna waa istaageen war joog aniga doonfaar ma cunno muslim baan nahay ilaahay yani maaragtay waa naga xarimi cabitaana xataa wuxuu usoo daray cabitaankan wuxuu yidhi waa khamrada magacaas waa cabitaankan waa cad wixii maaragtay oo xaaraanta oo qashinka oo dhan uu u keenay markaase waxay yidhahdeen maya ma ku jirno annaga maxaa dhacay ma cuni karno maxaa dhacay doonfaar iyo waxaas iyo khamre iyo anan shaqo kumina muslim baan nahay waayahay yuu yidhi ninka waxaa layidhi 10 sano wax ku dhow wuxuu daraasiinayey qur-aanka kariimka wuu yaqaanaa marka wuxuu yidhi waxaan intaasna aan daraasiinaya buu yidhi kitaabkii aad adigu had haysataan bal wuxuu yidhi kitaabka wuxuu idin diiday inaad khamro cabtaan soo ma ahan khamrada waa xaaraan waa doonfaarka ma cunaysin soo ma ahan laakiin khiyaanad awdana xoolaha aad xadaysaan wax aad beenta ka sheegaysiin waxyaabaha aad isdabamarsiinaysaan been abuurka ah waxaasoo dhan sharciyada ogosha soomaalida meesha joogtaa indhahay taagtaageen way yaabeen marka waa inaad ogaataa ayuhal muslim haddaa yani maaragtay muslim tahay oo soomaali tahay waxaa lagaa doonayaa ina mas-uuliyadda dacwada aad ku saaranta ina ogaato adoo ganacsi akhlaaqdaada wanaagsan baa waxaa rabaa inaad dad gaalo kugu soo raacan laakiin adoo been sheegay fiiri ballan baa la dhigana waxa leeyahay saaxiib na la isku waa la soo daa hal saac laba saac dib loogu dhici maxaa dhacay waa ballan afrikaani oo kuwii ballan laga baxo waufu bilcahdi in alcahda kaana mas-uulan waa la isweydiinayay waa khatarta ilaan marka waa inaan iska ilaalinaa macna waxyaabaha akhda'da ee lagu dhacay dadka ganacsada oo ay yani fahmaan inay risaale ay ximbaarsan yihiin mas-uuliyadda risaale inay ximbaarsan yihiin inay fahmaa weeyaan tusaalahaas marka waxaan usoo qaadanaya dabcan waxa weeyaan yani dhaqan xumada aan leenahay iyo sida aan rabna inaan u noqono yani maaragtay dad khiyaar ah masaajidka waa lagu fiican yahay laakiin tuulmin waa lagu jiraa ixtikaarki iyo isdabamariska iyo khiyaamaynta iyo suuq iska saarid waxaa badan hadda muntan ganacsiga suuq bay iska saaraan suuq iska saaridda way badan tahay haddana muslim waa fiican yahay salaad masaajidku dukanaya sadaqoo bixinaya qaaranka lagu yimiday iyo dadkii tabaalaysnaa iyo dhibaatooyinka jiray qayb buu ka qaadanaya laakiin dhibaato uu geysana ma fahmayo dhibaato uu geysanayay ma fahmayo waa caqli xumo marka na haysta weeyaan ayib sidoo kale waxaa suuragal ah in la xaqiijiyo ahdaafta nidaamka islaami laba dariiqadood waxaan dhihi karnaa dhowr wado ilaa dhowr wadda ama dhowr qaab ayaa waxaa lagu samayn karaa ahdaafta la leeyahay ahdaaftan si lagu xaqiijin karaa waxaa lagu xaqiijin karaa almusaahamatu fi ikhtiyaari almashaariic alistithmaariyati alhaadifati ذات الجدوى الاقتصاد والنفع العام المتعدي أنت هذا نفيرن ولا ليان سي أهدافت نظامك دقالة إسلام وكلية أهر جشة وإنك قيب قادنا دورشة لا دورنا يا مشاريع ذا مالجرينات برتلماميسن يسو وحاجرت مشاريع مالجرين هدف يول أما أجيدله marka aan rabna inaan nidaamka dhaqaalaha islaamka aan kor u qaadno oo dhaqaalaha islaamka uu noqdo mid sare oo ummadan dhaqaalahooda ay u kobca laazim waxa ama waajib nagu ah horta mashaariicda ka qayb qaadan kala horumarinta ee ahdaaf cad leh inaan helno waa anaga hadda waxaan u badannahay Soomaali hadaan nahay dukaanaan furaynaa iska furaynaa ujeedaan u furnay ma ba arkayso dukaan laga furay ما باركيسا العيال لسه اسكولدي سومان اما دوكسيدي iyo rawdaadki waxba laga cayaga sameynaya wala furi maalmaha bacdan uu kala yaac wala kala tagaya sabab marka horeba ahdaaf sax ma jirin mawduucan ama hadaf kan mashruucan ama waxyaabaha aan dooraneynay ma yahay wax hadaf sax leh oo ummadda horumarinka ka qayb qaadan kara oo faa'iido ummadda u soo laabanaysa leh arinta waa in la helaa waxa kale oo jiciga tasjiicu غيره من المستثمرين على اتباع النهج الإسلامي نقفك مسلم كمالجلين تسمينيا ذاتك كلا وكل رجلي إن الراعان منهج كإسلامك حاجة مالجلين مرك الله فيريا يا إن أي كوس في سنادان يعني الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي نظام كدقالها إسلام كهو تاجن صورة دي إني يعني مرت أو يعني أي كو تاجنادان يعني ما إني يعني وح الله وحي
يعني مرتي إسلامك dhaawacaya ee shubahaad iyo shaki iyo tashbiih iyo kufuraya maxaan dhahaa shukuug iyo shubahaad kufuraya waxaasoo dhan inay meesha ka saaraan sidoo kale waa inuu jiraa si maaragtay nidaamka dhaqaale islaamka loo hormariyo nashr wacyi sharci shariica islaamka in la isbaro la isku baraarujiyo ida naftirkeeda la isku baro la isbaro macnaha oo dadka loo soo dhaweeyay fiqul mucaamalaat ash-sharciyya ganacsato lagama maarma inaad barato fiqiga ku saabsan mucaamalaadka waajib bay kugu tahay si salaada biduuni cilmin shuruud ay u leedahay ayuu ganacsina shuruud iyo nidaam u leeyahay biduuni cilmin salaada lagama aqbalayo soo maahan biduuni aqoon ama cilmi la-aanna ganacsiga ha gelin ganacsiga haddaad gelaysid in aqoon adigu aad leedahay ama inaad haysata cid kula joogto oo aqoon leh oo kaa ilaalisa akhdaada iyo derbi kaboodka iyo meelaha aad ka dhicaysid arrintaasna walaalayaal muhim jindan bay noo tahay markii laga hadlaya ganacsiga weeyaan marka maxaa la rabaa marka dadka yaa la rabaa in la baro shariica islaamka mucaamalaadka si guud ahaan in dadka la baro in yacni maaragtay la sameeyo muqararaad ama maxaan ku ihahdaa in laga howlgala sidii manhajka islaamka ama manhaj diraasa madaarista iyo mucaahadaadka iyo kuliyaadka iyo jaamacaadka loo heli lahaa meel lagu barto fiqh mucaamalaat hadda alxamdulillah jaamacadii waxay leeyihiin takhasusaad oo fiqh mucaamalaat fiqh usul admanris ama fiqh mucaamalaat ama nidaam al-iqtisaad al-islami yani takhasusaad buu leeyahay yani in laga faa'iideysto waxaas oo dhan dadkii yani la kobciya maskaxdoodii loo sheega waxaani in ay u baahan yihiin marka ganacsi waxaan leeyahay يعني من كود دالة أو جهد كبحية سأفهم لهذين المعاملات المالية في الإسلام أما فقه المعاملات المالية في الإسلام سيلو فهم لها قضبك كلا وحوي هاي وحنكون جرني أهدافتي محنكون هذا جوج مدفق روحوها مثل روحوها دعم وتحقيق الأهداف النظام الاقتصادي طبعا هذا فكر الله بعض حنقنا تنمية العنصر البشرية وماشي ومهم سو ماشي waxa shaqeynaya bini aadam Soomaan bini aadam kan shaqeynayana waxa raba asi naftirkiis tanmiin lagu sameeyo khibro in la sameeyo dawlad la sameeyo maxaa la sameeyaa dawlad baa loo qaban dawladkaas ah maxalli ama hada khariji gudaha dibadda yani gudaha kalima wadanka inay ka baxaan Soomaaliya inay ka baxaan wadamada kala wadamadan caalamka islaamiga oo kala maxaan ku raahdaa in la tago oo shirarka laga qayb gala barnaamijka dawladka sharciga islaamka lagu hadlay ama gaar ahaan mu'tamaraadka la isku yimaado dhaqaalaha islaamka lagu hadlay in laga qayb galo waxna waxa soo in la sameeyo maxay sameeyeen marka maskaxdayda furaysaa waxyaabo badan ummad badan baa arkaysaa qaabka hadda oo Yemen oo kale ama Sacuudiga oo kale ama Imaaraadka oo kale ama wadamada kale Carbeed ama wadamada caalamka islaamiga oo kale Turkiga Malaysia Bangladesh waxaaba soo dhan Pakistan yani si ma aragtay hatta wadamada gaalada hatta Hindi iyo Mareykanka iyo maxaan ku leeyahay kamid yihiin Ingiriiska iyo Faransiiska waxa soo dhan yani in dawladka loo tago baxal yani dadka tadriibaad la sameeyo arinta waa muhiim waxa kale muhiim ah oo idana yani qayb ka ahaanaya taraakum ra's al-mal al-ijtimaa'i maal ijtimaaci yani rasul ijtimaaci in yani rasul maal ijtimaaci baa jiro oo ay iskuuladii iyo isbitaaladii iyo muassasaatu difaac waa saddex qayb ugu muhiimsan markaad maqasho taraakum رأس المال الاجتماعي مركز مغشاي وحلق وضع المدارس اسكولده جامعات يوحي سوهوز قلي مستشفيات اسبطالدي مؤسسات الدفاع يعني وزارة قاشانيقة أما ماشي عيدنك يعني مرتي لغا خوبي لغا نظامي لغا توبر لغا حاسودان يعني إنه وحاس أول جيران أرنتاني مهم أي نوتاي وحاكلو مهم الارتقاء بمستوى المعيشة وضمان حد الكفاية يعني ارتقاء لغو سمية مستوى المعيشة يعني معيشة أما قابك إنه كر أوقع أنا هذا الصومالي ناهي مشاكل كناها سويحوا يهي مستوى معيشتنا وركما هاينا بقى معيشة ديني إيه قابك إنه مستوى وركما ما اسكو جانقونا يعنيها waxa aan helna income ama faa'iidada soo ama dakhliga qofka soo galaya iyo waxa uu bixin way kala badin marka qaar wallahi waad la yaabaysaa ajiib waxa aad bixinaysa iyo kharashka bisha ku soo galay marka kala jartaay mar walba waxa badan oo badan waxa aad bixinaysid taa maxaa sababaysa marka waxay sababi kartaa ama iyada ay sabab u ahaba yani aqoon darra ama maaleen maalaan ama in ummadani ay dhaqaale haysanin aysan ummadani ay lahayn waxa ka rabaa in majaalaadka la maalgelinayo oo kala duunaado hal meel maan maalgelinayna
waxaad markasta aad mashaa bangiyada raali ahaadaan waxaad mar walba maqlaysaa muraabaxa waya siiqu listifmaar way badin ilaa 8 bay gaarayaan alijaaratu almuntahiyatu bitamliiki qardu xasana baa yimaado waxaa yimaado mudaaraba waxaa timaa muraabaxadii waxaa istisnaac baa ka mida beecu salam baa ka mida waxaasoo dhan aabay marka ay siiqu listifmaar oo ilaa 8 ku dhawaad gaaraya marka cilmi dhaqaalaha aad u tiro badan mee aabay aygi marka muraabaxa lama la joogaya oo muraabaxada muasiskan ama mustafmir qofka maalgelinta sameynay kayfa ay u jirto kan kala waxa uu jiray yani customerka aan dhibaato mu wax faa'iido yani inta badan dhibaato ku qabaan dana iyo duruufta ku qasbaysa xataa marka arrimahaas waa muhiim yani in la kala saaro ay kala duunaadaan qidaacatul istithmar qaybaha maalgelinta lagu sameynaya yani majaalad ban maalgelin waxa warshado arkay warshado in la dhisayo dalag beerihii ganacsigii iclaamkii caafimaadkii waxbarashadii dalxiiskii iyo waxaasoo dhan waa inaan lahaana ummad noo imaanaysa oo noo soo dalxiis tegaysa waa inuu jiraa dalxiiska maxaa laga faa'iidaya si allah insha allah waa noo imaan doonaa meelaha oo markaan ka hadlayna iclaamka iyo meelaha sagaarka markaan tagna yaan arki doonaa biidni illahi tacaala waxaa laga faa'iidaya dakhli fan baa kasoo ummadda markay soo degto waddanka ay timaad maalan elaboorku hadda qaanuun waxaa jirma elaboorku markaad ka tagto waddan ajnabi aad tagto in lacag laga qaaday vc okay lacagtaasi waa waddan wax soo galay taxi buu kiraysan hotel buu kiraysan maqaayad buu wax ka cuni alaab buu soo iibsan waxaasoo dhan waa wixii ummadda ay lahayd oo horumar sameeyey marka sixada waa loo baahan yahay marka dawaabada sharci baa la ilaalinaya yani dawaabada sharci baa la ilaalinaya caafimaadka oo kale mustashfayaadka isbitaal waaweyn iyo tacliintii iyo maxaan ku rahdaa iclaamkii ganacsiga waxaasoo dhan waa inay qaybo midba yani maalgelin lagu sameeyo weyaan ayib in ba anaga mid waxaa laga yaaba inaysan fahamsaninba iclaamka inuu maalgelin sameeyo ama maal uusan saari karo dad badan oo naga mid aha fahamsanin laakiin cidda taqaana waxa dhaqaalaha ku saabsan wax ka garanaysaa way garan kartaa iclaamka in maalgelin laga sameyn karo waxyaabaha nashaadul istithmaarka ama maalgelinta nashaadka waxyaabaha ka laazimaya ku xiran oo sharci waxa weeyaan qofka mustathmirka ah ama maalgeliyaha waa inuu wax un ka fahamsan yahay fiqh mucaamalada inta hadda soo sheegnay inuu yaqaan ahkaamul halal wal haram halaash iyo haramtu inuu kala garan kara waxa waajib ah muasasa kastaye inay ay qabato dowlad cilmi ah ama dowlad ta'hiil sharciya la yiraahdo oo macnaha ay tahay in shaqaalaheeda ay u qabata mar kastaba seminar ama dowlad lagu baraya waxa ku waajibay waxyaabaha laga doonaya oo mucaamalaadka ku saabsan arintaasi aad bay muhiim u tahay masaadarta marka maxaa ka dhalanaya waa inaan ka soo baxdaa inaan aasno oo aan dhidada u taagna macaahid dadka fiqiga lagu barayo fiqiga oo looga faa'iideysanay aqoontii iyo faa'iidii iyo shaqadii iyo howlihii ay qabteen culimadeennii hore ay qabteen macnaha in laga faa'iideysto waxaa loo sameeyaa marka shakhsiga waxaa rabaa marka ganacsiga sameynaya ama maalgelinta sameynaya inuu ka dhisnaado aljaanibu sharciy jaanibka sharciga waa inuu ka dhisnaadaa oo noqdaa qof jaanibu sharci ka dhisan fahmahaya waxa laga doonaya ayib waa inuu nashaatul istismaar ka dhigaa waxyaabaha shariica islaamka ay ogoshahay yani waxyaabaha xaaraantoo sharci ay reebteen uusan gelin intaa waa muhiim walaalayaal marka ahdaaftii guud waxaan ku jirnay mawta alahdaaf alistithmar fi lislaam ahdaaftii guud waxaan soo qaadanay kow dacmu wa taxqiiq ahdaaf النظام الاقتصادي الإسلامي إن هرت لحقيقي لبا تنمية العنصر البشري وأن يعني مهم شخص كان شقينية إن أسنفتك هرمر لو سمع أقون تيسا خبرة ديسا عقل جيسا مشارك كيسا تحفيز كيسا أما ديرجا أما بونس وحلو يقان وحلو سمع وحاصلا إن شاء الله تعالى قضبك سدحاد أو أهداف تجود اللي هي الأهداف الاستثمار في الإسلام وحويا تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا إن مجتمع horumar lagu sameeyo xag dhaqaale ahaan xagga bulsho ahaan insha Allah taala halqada mid xigta aan intaas kaga hadli doona hada wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي
واهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد